boqortooyadii La Roja afartii sano ee Spain ay dunida hogaamisay intii u dhaxaysay 2008 ilaa 2012, xulka qaranka Spain ma aysan ciyaareen kaliya kubadda cagta, balse waxay dunida bareen farshaxan cusub iyadoo loo marayo falsafadda caanka ah ee tiki-taka. Spain waxay dhistay boqortooyo aan la ruxi karin, iyagoo noqday xulkii ugu horeeyay ee 3 koob oo waaweyn oo xiriir ah ku guuleysta. Waa xilli ay garoomada ku liseen farsamo, dulqaad iyo guulo taariikhi ah oo aan weli la mid ah la arkin. Haddaba saaxiibayaal, aan dib u jaleecno 15 qodob ee ka dhigay jiilkaas kuwo aan la ilaabi karin iyo sidii ay u beddeleen wejiga ciyaaraha adduunka. Hase yeeshee, is-xasuusin haddii ay tahay markii ugu horeysay ee aad soo booqato barteena YouTube, fadlan subscribe noo saar, sidoo kale like saar muuqaalka oo u share garay saaxiibadaada. Sidoo kale, haddii aad iga daawanayso Facebook page-keena Guriga Ciyaaraha TV, fadlan na soo follow garay, like saar muuqaalkan oo u share garay saaxiibadaada. Mahadsanid. Aan usii gudagalno qodobkeena koowaad. 3 koob ee isku xiga The Treble. Spain waxay noqotay xulkii ugu horeeyay ee ku guuleysta 3 koob oo waaweyn oo xiriir ah: Euro 2008, World Cup 2010, iyo Euro 2012. Soo afjaridii abaartii koobabka. Guusha Euro 2008 waxay soo afjartay 44 sano oo aysan Spain wax koob ah ku guuleysan, taas oo dhistay kalsoonida jiilkaas. 3. Falsafadda tiki-taka. Muddadaas, Spain waxay dunida ku qabsatay qaab ciyaareedka tiki-taka, kaas oo ku dhisnaa baasas gaagaaban, xajisashada kubadda, iyo dhaqdhaqaaq joogto ah. 4. Guushii Koobka Adduunka 2010. Spain waxay markii ugu horeysay taariikhdooda ku guuleysteen Koobka Adduunka sanadkii 2010, kadib markii ay 1-0 uga badiyeen Netherlands ciyaartii finaalka ee ka dhacday dalka South Africa. 5. Goolkii taariikhiga ahaa ee Andres Iniesta. Daqiiqadii 116aad ee waqtiga dheeriga ah ee finaalka 2010, Andres Iniesta ayaa dhaliyay goolkii ugu muhiimsanaa taariikhda Spain, kaas oo xaqiijiyay Koobka Adduunka. 6. Khadka dhexe ee sixirka ahaa. Guusha Spain waxay ku tiirsanayd 3 xidig ee kala ah Xavi Hernandez, Andres Iniesta, iyo Sergio Busquets, kuwaas oo maamuli jiray khadka dhexe ee ciyaar kasta. 7. Hogaamintii Vicente Del Bosque iyo Luis Aragonés. Luis Aragonés ayaa dhisay dhabbihii guusha ee Euro 2008, halka Vicente Del Bosque uu sii dhammaystiray oo uu ku daray Koobka Adduunka iyo Euro 2012. 8. Iker Casillas. Derbigii Spain. Kabtan Iker Casillas wuxuu ahaa mid aan la jebin karin, isagoo badbaadiyay goolal muhiim ah sida rigooradii Paraguay 2010 iyo goolashii Arjen Robben ee finaalka. 9. Difaac adag. Intii ay socdeen wareegyada bug-baxda ee 3daas tartan, Spain marna gool lagama dhalin. Taas waxay muujinaysaa tayadii difaac ee ay hogaaminayeen Carlos Puyol, Gerard Piqué, iyo Sergio Ramos. 10. Goolashii David Villa. David Villa wuxuu ahaa mashiinka goolasha ee Spain, isagoo ahaa gool-dhaliyaha ugu sareeya Spain ee Euro 2008 iyo Koobka Adduunka 2010. 11. Finaalkii ugu weynaa Euro 2012. Finaalkii Euro 2012, Spain waxay 4-0 ku dubatay xulka qaranka Italy. Tani waa guushii ugu weyneed ee abid laga gaaro finaalka tartanka qaramada Yurub. 12. Ciyaaridda False 9. Euro 2012, Spain waxay inta badan ciyaari jirtay iyadoon lahayn weeraryahan rasmi ah, iyadoo Cesc Fabregas loo isticmaali jiray False 9 si loo kordhiyo xajisashada kubadda. 13. Isku duubnaanta xidigaha Barca iyo Real Madrid. Inkasta oo uu jiray xifaaltan weyn oo u dhexeeyay Barcelona iyo Real Madrid, haddana xidigaha labada kooxood waxay si cajiib ah ugu midoobeen xulka qaranka. 14. Lambarka koowaad ee qiimeynta FIFA. Muddadaas u dhaxaysay 2008 ilaa 2012, Spain waxay inta badan fadhiyeen
kaalinta koowaad ee qiimeynta xulalka adduunka ee FIFA. 15 dhaxalka ay ka tageen. Jiilkaas Spain waxay bedeleen habka loo ciyaaro kubadda cagta casriga ah, iyagoo tusaale u noqday in farsamada iyo baasaska ay ka muhiimsanaan karaan xoogga jirka. Haddaba saaxiibayaal, waxaa intii noogu eg qisadii Spain 2008 ilaa 2012. Intaan ku kulmi doono qiso tan la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.